الحمد لله رب العالمين. أنا dhalinyarta gobolada galbeedka ahna gudoomiyaha dhalinyarta gobolada galbeedka magacaygan waxa la yiraahdaa Faras Ismaan Faarax Abraar. Waxaan maanta soo booqanay gabadh saddex caruur ku dhashay isbitaalka lagu qalay oo waxaan ugu nimidnay oo naloo soo wakiishay lacag inaan soo gaarsiino annagoo ah dhalinyarta gobolada galbeedka. Nabiga Cali Salaam wuxuu yiri hadii aad iska caawisin dhulka ilaahayna samada ayuu niga caawinayaa. Marka dadkeena dhibaataysan ee u baahan in la caawiyo inta wax haysata inay caawiso waa muhiim. Marka waxaan u nimidnay Carab maanta inuu u keeno lacagna loogu soo wakiishay inaan soo gaarsiino hadii alla yiraahdo. Walaasheena waxaynu guddoonsiinaynaa lacag ay noo soo wakiilatay gabadh muxsinada oo walaasheena degan dalka Uganda inaanu guddoonsiino. halkana waxa garabkayga taagan Dr. Saalax oo ah doctorkii hawsha gacanta ku hayay ee gabadha xaalkeeda baan ku ogaanay inay hawli jirto. markaas ay walaalahay sheegeen dhakhtarka waxa yaala dad iyada ka sii liita waan cidi ogeyn. marka waxaan leenahay insha Allah lacag 500 aan guddoonsiinaynaa. marka insha Allah $500 ma guddoonsiinaynaa. walaal naga guddoon lacagta $500. ولا والله $500 aad bad maasantiin dhalinyarta gobolada galbeedka soo gabadha masaakiinta ee dhibaataysan soo gaarsiiyay lacagta loo soo wakiishay laftirkeeda ee lagu soo hagaajiyay gabadhaasi. waan arkaynaa oo markhaati waan ka nahay in la soo gaarsiiyay lacag dhan $500 oo waliba farta laga saaray. idinkuma maahine waxaan ka rajaynaa ummadda kale ka rajaynaa intaa in ka badan in miskiintaasi lagu soo caawiyo. idinkan hawsha soo qabtayna gobolada galbeedkana aad iyo aad bad maasantiin. waa idin mahadnaqaynaa sida dhiiran ee hawshaasi aad uga dabaalateen. iyadoo kulli abaalkeeda dawlad arkaysa idin ducaynaysaa niyadeeda Ilaahay boog niyadeeda Ilaahay boog وأنتم كم سنتين؟ الوضع ما سنتين. تقدر تسوق أرسين. وضع ما سنتين ولا تقدر تسوق أرسين. الله محقق نجد سايسيو. ماذا تقولون حتى أساسون؟ أنا الساعة ويوم ورا الله يقام حكر ذا. أوكي إسلامك. نصوب وقنو عن حكومة مش إثبات الكوين مجالات البورمة صدح وبضع ما شاء الله أو حلقوا فرحة أنا واحد بورن سدين. haddana waxaan la soo wakiishay inaan soo gaarsiino waxoogaa deeq oo gabadh walaasheena muxsinada soo dhiibtay. marka waxaan leenahay isbitaalka dad liita waa farabadan yihiin waa yaalaan walaalaha muslimiinta meel kasta ay joogaan ha u gurmadaan dadkooda waayo wax dawlad oo lagu halayn karaa ma jirto oo wax cid war ka haysa ma jirto. isbitaalka laftiisa waa iska dareenyaysan yahay wax kama helo wasaaradda caafimaadka ee Somaliland waa iska dayacan yahay. marka waxaan leeyahay war dadkiina idinku isu gurmadaan leeyahay gudaha iyo dibadda meesha aad joogtaanba iska warhaya. isbitaalka xaaladiisu wax taa iska liidataa waa in loo gurmadaa isbitaalka laftiisa oo ma taqaanaayay aan kor u qaadnaa tayadiisii. wassalaamu calaykum. dhalinyartu hore u tiri weeyeen anagoo ah dhalinyartii gobolada galbeedka waxaan maanta halkan aan maartay ku soo booqanay gabadha walaasheena Canab oo saddex ubada ku mushay dhakhtarka weyn ee magaalada Boorama. annagoo markaasi u wakiil ah muxsinad gabadh muxsinada oo walaasheena oo iyadna ka damqatay qadar lacagana ma aragtay u soo gudbisay oo insha Allah anagu aan wakiil uga nahay. taasi un baan ma aragtay maanta halkan aanu nimidnay. marka insha Allah dadka kale ee muslimiinta ana waxaan farayaa waxa la koowna maaha labana maaha saddexna ma oran karo waxa weeyaan muslimiinta cidii wax karaysa ee Ilaahay uu waxsiiyo waxa weeyaan dadka walaalahooda kala iyada iyo waxa la mid oo kaleba dhamaantood waxaan leenahay soo gaarsiiyo insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo. waxaan leenahay gacantii ay ka soo baxday ee gabadha muxsinada ee walaasheeda ana waxaan leenahay Ilaahay gacan khayr qabtaa ugu bedelo. walaalaha ay kale dhibaataysan dhibta Allah ka dul qaado. assalaamu calaykum. waxaan la joognaa walaalo Canab oo ku umushay saddex ciyaala. waxaan guddoonsiinaynaa lacag walaal muxsinada ee u soo dirtay
qurbajooga reer awdal iyo dadka kale muxsiniintaana waxaan ka codsanaynaa dhakhtarku dad badan oo baahan baa ku jira in ay soo caawiyaan oo sida dadka wax soo dirayoo kale ay soo caawiyaan intaabaan odhan lahaa